ninbaa wuxuu arkay nin saa u fiirinaya daaro dheer oo qurux badan oo meel laga dhisay aad u qurux badan markuu saas u milicsaday oo dhinac walba ka eegay oo la yaabay waana nin faqiir ah ayuu isla hadlo wuxuu yidhi ayna naxnu mataa qusimat haadihi alarzaaq xaggee baan jirna annagu markii arsaaqda saatan loo qaybinahayey xaggee baan jir mid baa gacanta qabtay oo yidhi bal kaalay isbitaalladii buu intuu geeyey waxa meeshaas silc yaalla markuu saa u soo mariyo wuxuu yidhi ayna naxnu mataa qusimat haadihi alamraad cudurradaan markii la qaybinahay annagu xaggee jir waxaanoo cudura markii la qaybinahay oo kala duwan oo halkaa dadku la yaallaan xaggee baan joognay waa inaad ogaataa marka waxyaalaha kuu fududaynaya inaad dib iskugu laabatid nicamka ilaahay aad xasuusatid waxaa ka mid ah cidda kaa hoosaysa inaad egtid ee aadan u hanqaltaagin cidda kaa koraysa nebi moxamed wuxuu leeyahay calayhi الصalaaةu wasalaam اnduruu ilaa man huwa asfalu minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum cidda idinka hoosaysa eeg oo fiiriya ciddaa jalleeca haddii gurigaagu meel ku yaallo guri qurux badan oo kaa qurxoon oo kaa dheer ka ag dhisan yahay dhinaca kale bal eeg waxaa laga yaabaa guri kaa hooseeya inuu ku yaallo haddii gurigaaga gaari la'aan uu yahay bal eeg kuwa kaa soo hor jeeda waxaa laga yaabaa gaari iska daaye roobkii waxay ka okortaan inay la'yihiin haddaad xalay iyo maanta iyo caawa 3 jeer 2 waqti aad wax cuntay bal eeg kuwa waxaa jira 2da waqtiba aan helin haddaa xalay nabadgelyo ku seexatay kuwa aan ku seexan baa jira caafimaadka asaaka gurigaaga uga baxday oo magaalada ku soo martay oo ku soo tugatay oo guriga ku laabatay kuwa waxaa jira aan ciidinba in la ciido war u haynin oo sariiraha yaallay oo markaa ciidda iyo farxadda loo soo baxaya guryaha looga soo tegey marad baa reebay cidda kaa hoosaysa mar walba eeg hankaaga adduunyada iyo mamanaanta aad raadinaysid baa hoos u laabanayoo jabaya markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamka uu kuu galay markaasaad dareemaysaa oo milicsanaysa nicamka ilaahay lama koobi karo alam tarow ana allaha sakhara lakum ma fi الsamaawaati wama fi اlard miyaynan ogeyn ilaahay inuu idiin sakhira dhulka iyo samaawaadka waxa ku sugan waasbaga calaykum nicamahu daahiratan wa baatina ilaahay idinku daboolo idinku shubay nicamkiisa mid muuqata iyo mid qarsoon imisaa nimco qarsoon aad haysataa markii koroonuhu dhacay oo qof walba naqaskii ku dhagahayo oo isbitaalladii la soo dhoobay oo haanta yartaah oo mataqaanaa naqaska qofka loogu xidhaya dhowr boqol ay gaartay 500 600 ay gaartay baa waxaa la dareemay oksijiinkan hawadan la neefsanahay macnaha iyo qiimaha ay u leedahay bani aadamka iyo naflaha u leedahay ma aanan ogeyn ka hor maba la dareemi jirin neef baa loo raadinayaa markaasaa saacad gudaheed waxaa laga qaadanayaa dhowr boqol oo dollar inuu neefsadaa la raadinayaa laylan wa nahaaran waxaad neefsanaysaa mid wax lacaga aynan kugu socon shilin aan lagaa qaadahay wax kuwa man amaal sheeganayana aan la arag miyaadan dareemi karin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kaa mudan yahay miyaadan ogeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad dareentid xaqa uu kugu leeyahay ilaahay cadamadiisa iyo weyninkiisa mana dareento ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha annaasu dkuruu nicmat allaahi calaykum wardadow ilaahay nicamkiisa xasuusta hal min khaaliqin hayru allah yarzuqukum min alsamaa'i waalard ma waxaa jira khaaliq aan alla ahayn oo idin biilahayoo samada idinka arsaaqaya dhulka laa ilaaha ilaa huwa faannaa tu'fakuun
alla mooyaane cid kaloo xaq lagu caabudaa ma ay jirto seba lidin leexinaya war nicamka ilaahay xasuusta ilaahay waa khaaliqii idin abuuray waa midka idin arsaaqaya waa midka cibaadada idinku leh ilaahay marka wuxuu nagu boorinayaa inaan xasuusnaano nicamkeena